wafdigu waxa uu hoosta ka xariiqay in magaalada laascaanood ay nabad tahay oo hanaan dowladnimo uu ka jiro argagixiso iyo khalkhal amni toona aanu ka jirin. maamulka SSC Khaatumo waxaan qiraynaa inuu awood buuxda u leeyahay ilaalinta hanaanka nabadda iyo xasiloonida bulshada. wafdi ballaaran oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya kana tirsan labada gole ee baarlamaanka ayna qayb ka yihiin madax hore iyo aqoon-yahano oo maalintii shalay soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, sidoo kalena booqday deegaano ka tirsan gobolka, kulamana la yeeshay mas'uuliyiinta maamulka SSC Khaatumo, isla markaana xalay ku hoyday magaalada Laascaanood oo bulshada gobolka ay isku xog wareysteen oo maanta soo gabagabeeyay safarkooda ayaa war ka soo saaray waxa ay ku soo arkeen gobolka Sool. war saxaafadeed. wafdi ballaaran oo ka kooban golayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqasho 2 cisho 14 iyo 15 bishan September sanadka 2023 ku yimid magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. wafdigan ayaa la kulmay hoggaanka maamulka SSC Khaatumo, golaha xogeyaasha isimada dhaqanka ee SSC Khaatumo, waxaana kulamadan la isaga xog wareystay oo looga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo waliba gargaarka. wafdigu waxa uu u mahad celinayaa maamulka SSC Khaatumo, hoggaanka dhaqanka iyo shacabka Soomaaliyeed ee Laascaanood soo dhaweyntii diiranayd ee hagrasho la'aanta ahayd ee lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood iyo deegaanka SSC Khaatumo. wafdigu waxa uu u kuurgalay baahida deegaanka, gaar ahaan dhismaha hay'adaha dawliga, xarumaha adeegyada bulshada, arrimaha gargaarka bini'aadanimada iyo dib u dejinta shacabkii ku barakacay colaadihii ka jiray deegaanka. warbixin ku saabsan arrimahan wafdigu u kuurgalay ayaa la isla gartay in lala wadaago xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka. wafdigu wuxuu aad ugu amaanayaa dowladda iyo hoggaanka dhaqanka ee SSC Khaatumo sida ay u xakameeyeen ciidamada deegaanka oo aanay ugu gudbin deegaano ka baxsan SSC Khaatumo. wafdigu wuxuu baaq nabadeed u soo jeedinayaa maamulka Somaliland si looga baaqsado colaad keenaysa dhimasho, dhaawac, barakac iyo hanti lunta oo ku timaada shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale wafdigu waxa uu ugu baaqayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka inay door mugla ka qaataan ka hortagidda colaad dib uga soo dhex noqota beelaha Soomaaliyeed ee deriska iyo walaalaha ah. wafdigu waxa uu hoosta ka xariiqay in magaalada Laascaanood ay nabad tahay oo hanaan dowladnimo uu ka jiro argagixiso iyo khalkhal amni toona aanu ka jirin, ayna muhiim tahay hay'adaha gargaarka iyo cid walba oo adeega bulshada deegaanada SSC danaynaysa inay si nabada uga hawlgeli karaan. maamulka SSC Khaatumo waxaan qiraynaa inuu awood buuxda u leeyahay ilaalinta hanaanka nabadda iyo xasiloonida bulshada. ugu dambeyntii, wafdigu waxa uu ku boorinayaa dowladda SSC Khaatumo iyo bulshada Soomaaliyeed ee SSC inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta, xoojinta amniga iyo horumarinta deegaanka. dhammaad.